kalfadhigii saaka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland taasoo lagu ansixinayay xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha qaranka ee Soomaaliland taasoo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaanay ka soo qayb galin xildhibaanada ka soo jeeda beelaha darafyada marka laga reebo laba xildhibaan oo ka soo jeeda gobolkaasi Sool oo mid ka mid uu ka baxay amaba uu ka huleelay intii ay codbixintu socotay ansixinta xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha qaranka oo aan si duuduuba marka hore aan lagu ansixin ayaa qodob loo geliyay waayahay xildhibaanadu waxa ay kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada ku jira xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha iyadoo gabi ahaanba meesha laga saaray dhammaan kootadii ku jirtay xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha qaranka ee Soomaaliland waa kan gudoomiye ku-xigeenka oo ku dhawaaqay natiijada xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 19/2020 waxa cod ku ogolaaday 41 mudane waxa diiday hal mudane gudoomiyuhu ma codaynin xeerkaasi sidaas ku ansaxay mudanayaal markii lagu dhawaaqay natiijada xeerkaasi ayaanay gabi ahaanba aanay qayb ka ahayn beelaha darafyada marka laga reebo hal xildhibaan oo ka soo jeeda gobolkaasi Sool Aydaruus Maxamed Aynan Goobjoog magaalada Hargeysa